magaalada muqdisho waxaa dib ugu laabtay ciyaaryahanada 17 sano jirka ah ee Soomaaliya kuwaas oo ka qayb galay ciyaarihii lagu qabtay dalka Burundi ee ciyaartoyga bariga iyo bartamaha Afrika iyagoo ciyaaryahanadani tartankaasi ka soo galay kaalinta labaad warbixinta waxay noo haysaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ciyaartoyda xulka kubadda cagta Soomaaliya ee 17 jirka ka hooseeya ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaasi oo dadkii ku soo dhaweeyay uu ku jiro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo gacan qaaday dhalinyarada ciyaartoyda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan ciyaaraha heerka gabagabada ee finalka Cali Maxamuud Xasan Cali Xabad waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda waxa uuna VOA-da uga waramay waxay uga dhigan tahay ciyaarihii ay soo ciyaareen tartankan oo hadda finalka in badan horta malaysdheer Soomaaliya final ma haysto haddana wax walba xaq alle ku qoran yihiin saasay taana anaga dadaal iyo juhdi asgalinay kalsoonida isku beernay wadahaalada isku beernay intaas ugu badan oo kaliya tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijooyinka ciyaaraha ay soo gaareen ciyaartii ugu dambeysay saad ogtii Tanzania la yeelanay waxaan ku badiyay 2-0 inkastoo maartay aan wax tabanay oo garsoorka agsiba ka tabanay oo saad daawaneysay maartay goolal aan isla waa goolal ka diiday laakiin haddana sidaas oo ay tahay ku qanacsanaa natiijada aan gaarnay waa runtii waxay ahayd natiijo aad iyo aad u farxad leh oo aanan filayn oo marka halkaan ka tagayna la liilayo la lahayo waxba ma keeni doontaan ciyaartoyda Soomaaliya ayaa garoonka si fiican loogu soo dhaweeyay iyadoo lagu qaaday gaadiidkii loogu sii kala galay waxaana la geeyay hotelka saxafka halkaas oo quraac loogu sameeyay soo dhaweynta kadib ayaa waxa baraha bulshada la soo dhigay muuqaalo muujinaya ciyaartoyda oo raacaya baabuurta bajaajka loo yaqaan ee magaalada laga isticmaalo arrintaasi oo keentay in dadka qaarkood ay sheegaan in ciyaartoydu ay u qalmeen in baabuur guryahooda lagu geeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariso ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay inay aad uga xun yihiin in ciyaartoydii bajaaj ay raacaan wuxuuna sheegay in gobolkiisa uu basas u diyaariyay Yariso waxa kale oo uu sheegay inay baarayaan sababta keentay in ciyaartoyda aan lagu qaadin basaskii loogu talagalay waa markii ugu horeysay ee xulka da'da yar ee qaranka Soomaaliya ka socda ay soo gaaraan ciyaaraha finalka tartanka bariga iyo bartamaha Afrika sanadihii ugu dambeeyay ee burburka dalka Sahra Cabdi Axmed VOA Washington